jaamacadda Jasiira ee magaalada Muqdisho ayaa maanta adeeg caafimaad iyo deeq dhar gaarsiisay dadka barakacayaasha ee ku nool kaamka Hogol ee nawaaxiga Sarkuusta degmada Dharkiinley. Mas'uuliyiinta jaamacadda Jasiira ee maanta deeqdan gaarsiisay dadka barakacayaasha ayaa waxa horkacayay Aditooraysa Luulu Maxamuud Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda caafimaadka jaamacadda Jasiira ee magaalada Muqdisho. Maryan Xaaji Maxamuud oo ah horjoogaha kaamka Hogol ayaa ka mahad celisay deeqdan. kaamka magaciisa Hogol la yiraahdaa waxa uu soo gurmaday oo maalintii ugu horeysay looga mahadnaqaa jaamacadda Al-Jasiira iyo iskoolka Ibn Qusayma waxa arday arkaysiin waa ardadii Soomaaliyeed waa taqaadiirtii Soomaaliyeed waa odayaashii Soomaaliyeed waxaan ka rabnaa marka intaas ay maanta ku soo dabaruceen oo hortiina taalo iyo intaas u taagan caafimaadka intaas kaalmo u taagan waa dad Soomaaliyeed waa arday Soomaaliyeed waa takhtar Soomaaliyeed sidoo kale waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha ardayda dugsiyada sare ee ku midoobay inay kaalmeeyaan dadka dhibaataysan Maxamed Maxamuud Cilmi waxaan aad ugu mahad celinayaa ugu horeyn jaamacadda Jasiira oo qaybta daawooyinka iyo dhaqaatiir keentay jaamacadda oo kaamkan dhaqaatiir iyo qaybta daawooyinka iyo caafimaadka ka saaciday aad ayaan ugu mahad celinayaa jaamacadda Jasiira waxaa jaamacadda Jasiira sidoo kale uga mahad celinaynaa fariinta inay soo gaarsiiso ku aadan in kaamkan dadka barakacayaasha ay joogaan baahida noocaasina ay ka jirto inaan kala qayb qaadano barnaamijka caawiye asxaabta barnaamijka caawiye oo hoos taga jamciyadda asal waxay ku guuleysteen inay baraarujin ku sameeyaan ardayda dugsiyada sare ee magaalada Muqdisho waxaa marka maanta nala socda oo meeshan aan ku matalaynaa iskoolka Imaam Ibn Qusayma al-asaasiya iyo thanawiya oo iskoolkii kuwaad noqday kaamkan soo gaara ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay hormuudka kulliyadda caafimaadka jaamacadda Jasiira ee magaalada Muqdisho Aditooraysa Luulu Maxamuud Maxamed waxa ayna sharaxaad ka bixisay adeeqdan isugu jirta daawooyin iyo dhar oo ay gaarsiiyeen dadka barakacayaasha arrintan ma ahan arrintii markii noogu horeysay ilaa iyo 7 goor hadda aan meelaha tagaynay mar walba barakacayaasha ugu talagalnay dadka oo masaakiinta Soomaaliyeed oo inaan uga jawaabno baahidooda caafimaad arrinta kale waxa inaan maadaama anaga jaamacad aan nahay jaamacadda Jasiira ayna hayso dhaqaatiir iyo nursing iyo ay soo saarto marka ayagana inay arkaan community-ga meesha ku nool yihiin dadka dhinac u qabatay isbitaal ku sugtid wax badan aad ka warqabeen dadka qaarna ma ku soo gaari karaan dhibaatooyinka ugu badan ay qabaan waxa ugu daran nafaqa darrada oo kullu ku baahsan marka 5 cunug aragtida 2-3 ay qabta nafaqa darro hooyooyinka oo uurka leh oo ayagana dhiig la'aan iyo waxaas ay u badan tahay maadaama dad oo barakacayaal wax badan haysan ay yihiin waxyaabaha ay u baahan ma ahan caafimaad kaliya ma ahan daawo wax kasta ay u baahan haday noqoleed dhar haday noqoleed cunto haday noqoleed biyo nadaafad wax badan ay u baahan Maxamed Cali Weheliye Universal TV magaalada Muqdisho.